dowladda hoose ee degmada Berbera oo muddadan ku hawlnay si kor loogu qaado bilicda magaalada Berbera iyo sidii loo heli lahaa 2019 Berbera cagaaran ayaa maanta jidka kitaabka ee afartaad ee laga soo galo magaalada Berbera ayaa lagu beeray geedka timirta ugu horeyna waxa halka ka agaasima waaxidiyada dowladda hoose ee degmada Berbera soconaya oo aanu gacanta ku sii haynaynaa labadii qorshe ee 2019 golaha deegaanku ansixiyay ee aanu ku talaabsanay ahaa Berbera cagaaran oo markaas nadiif ah aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa magaalo doog ah hadii la hayraado jidkan ay taaganahay waxa weeye halbowlihii magaalada laga soo galiyay wadadii cusbeed ee sanadkan fulinay qorshayaasha noogu jiray ee afartaad dhexdoodii waxaan ku beeraynaa timir bahaash iyo dhir kala duwan oo aan ku ridi doono insha Allah hadii la geesta kale waxa isnaalka ka hadlay duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin waxaan leeyahay waxaan idinka mahad celinaynaa iskarabtaaga waayo waxaan isla garanay bishan wixii ka dambeeyay inaan dhirtu inaan inoo qabaneen cimilada awgeed laakiin bishan inaan ku khatimano si xididku dhulka inoo gaadho haddii ay ka dhigo marka waxa inoo ballanaa insha Allah taala qof kasta oo maanta Berbera ku nool wuxuu markhaati ka yahay ama uu ku diirsanaya in gurigiisa hortiisa uu ka babanayo geedkaasna waa faa'iido aynu mar dambe intifaacsan doono maanta waa wada bilow mid kastaaba wuxuu joogan ismitir بريتا لكن سوق الضمان حرصان دونا إن شاء الله وحويا بلنا كانوا هيكسينو وحيرسوق عليه الصلاة والسلام حلولي ساعات قيامه هدي كعيسو وهذا ودول افتمرادين هذا أصله أسبوري كوالا وودا ما دوخت كوانا ونونا قدام هذا لكن لا منت كوجودن بيا وما ضيع حبانو قبلنا وبالله توفيق gabagabadiina waxa halka amaan uga jeediyay dowladda hoose degmada Berbera barasaabka gobolka Saaxil injineer Axmed Cismaan Xasan maxaan ku radaa kii cusbaa la sameeyay kii hore halkan halka ugu qurux badan bay noqday sida la xusay wad arkaysaan waxaynu hore u beeray geeda timira oo gaagaaban maanta waa iyagoo midhihii madaliskii ku dhow baa la beerayaa insha Allah oo ku taagan waa Khadar Maxamuud Axmed Khadar Xafo telefishinka caalamiga ee Kalsan magaala xeebada Berbera